Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacna daawadayaal soo dhowaada waa mar kale iyo walaalkiin aadan karaama halka aad iga daawanaysaan waa bartan youtube-ka ku leeyahay aadan karaama haddii ay tahay markii ugu horreysay aadna soo booqato fadlan sabskreibta inoo taabo islamarkaana riixka bareelka casi ay kuu soo gaarhaan muuqaalada iyo dhacdooyinka kala duwan ee xiisaha leh aan halkan kusoo gudbinno haddii aad horey noola joogtay 1,000 jeer ayaad mahadsan tahay fadlan muuqaalka leeg kusii qaba si ay ugu sii gaadho markaasi bulsho tiro badan marka xumada cida uu ku dhacay oo ka badan iminka intaanu hayno diiwaanka noogu jirta ilaa 500 oo qof oo cusbitaalka la keenay isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa waxa la keenay ku dhawaad 500 oo qof oo ay soo riday xumada daran ee ka jirta deegaanada Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa tan iyo inta ay xumadu bilaabatay sida warbaahinta uu sheegay agaasima ku xigeenka isbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa Cadnaan Sayd Cabdo waxa uu sidoo kale agaasima ku xigeenku xusay in maalintiiba ku dhawaad 50 qof la keeno isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa laga soo bilaabo dhamaadkii September waxa aanu furnay xarun gaar ah oo lagu daweeyo xumada oo ku dhawaad ah 30 sariirood sidoo kale waxa uu shaqeeyaa qaybta adeegga degdegga ee emergency-ga dadka imanaya markan qiyaaso record aan eegno muxuu ahaa isbitaalka maalintii waxa ku dhow yihiin 50 qof ay maalin kasta yimaada 50 ka qof in ka badan 60% waa la celiyaa oo waxa lagu daweeyaa guryaha lagu daweeyaa inta soo hadhay ayaa la dhigaa dadka u dhimanaya xumadu aad bay u yaryihiin tiraba inta nimka anagu haynaa ee u dhintay xumadaasi cusbitaalka looga shakiyay ama lagu confirm gareeyay xumadu dhinteen waa tiro ku dhow 7 qof marka xumada cida uu ku dhacay oo ka badan iminka intaanu hayno diiwaanka noogu jirta ilaa 500 oo qof oo cusbitaalka la keenay iyo ka badan guryaha lagu daweeyay waxa u dhimanaya aad bay u yaryihiin dadka u dhintayna waa dad marka hore xanuuno kala qabay ama u nuglaa inay muxuu ahaa u xanuunsadaan xumadan xasan waxaana xusid midan dadkaas inaan intooda badan u dhiman inay dhiig baxeen waxa u dhimanayaan shock ama wax loo yaqaan organ failure oo xumadu si kale u sababayso beerka fadhiisanaya muxuu ahaa barar badan oo yeelanaya dadkaas marka hore ahaa dad kaliya xanuunayeen ama wadnuhu xanuunayay ama qabay xanuuno kale oo la noolaado agaasima ku xigeenka waxa uu sidoo kale ka hadlay ama uu bulshada Soomaaliland uga digay inay ku degdegto in wax dhiiga ay ku shubaan qofka xumadani u soo dhaca waxa in badan inka suuqa gashay oo laga hadlayaa in xumadan ay keenayso dhiig bax dadkuna ay dhiig goosanayaan oo u baahan yihiin in dhiig lagu shubo daruuri maaha in qofka dhiig lagu shubo ilaa iyo ay gaadho marxaladda qofku dhiig u baahanayo taas oo ay xukumayso oo uu xukumayaan dhakhtar garanaya xanuunada iyo calaamadaha xumadan marka la baaro qofka ee la arko in ay dhiigiisu yaraaday maaha in markiiba lagula ordo in dhiig lagu shubo waxa dhiig lagu shubi karaa qof ay gaadhay markii dhiig lagu shubiyay taas oo ah inuu dhiig bax aan la control karin uu qabo inuu qofku uu qabo xanuuno kale isla markaana uu ku jiro shock uu ku jiro in qofku uu qabo ama uu qaato dawooyinka joogtada ee dhiiga furfura isla markaana uu sameeyo dhiig bax dadka loo ogol yahay in dhiiga lagu shubana waxa ku shubi karaya shaqaale caafimaad ama dhakhtar caafimaad waxaana loogu shubi karayaa goob caafimaad waxa kale oo dadka rabaa in la wadaago in haba yaraatee waqti xaadirkan aanay jirin wax dhiig la'aan ah oo ka taagan goobaha caafimaadka anagoo gacanta ku hayna sida cusbitaalka guud oo ay blood bankiisa iyo dhiiga yaala ay ku filayeen dadkana marka loo baahdo annaga naga dhageystaan in dhiig aan u baahanahay ama dadka la dhiig la siiyo walaalkiin aadan karaama tan iyo muuqaalkan mid lamid intaan ku kulmayno waxaan ka codsanayaa inaad subscribe inoo saartaan isla markaana muuqaalka aad share sii dhahdaan oo like sii saartaan oo aad meel fog sii gaarsiisaan haddii aad horey noola joogtay aad iyo aad baad mahadsan tahay haddaad inagu cusub tahayna waxaan leeyahay soo dhowaada subscribe inoo saara isla markaana riixa gambaraalka cas si aad u noqoto qofka ugu horreeyay soo gaaraan muuqaalada xiisaha leh ee kala duwan ee kusoo gudbinno tan iyo muuqaalkan mid lamid intaan ku kulmayno waxaan kaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh